ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. walaalyaal halka waxaan tusayaa baamiyahani oo aan salar ka dhigay salar ahaan aan cunayo iyo salarkii maxaa la dhihi jiray basbaaska greenka iyo baamiyahana isku jirjiray salar ahaan baan ka dhigay dheefshiidka caloosha marka qofku musqusha galayo uu maaragtay uu musqusha gelin caloosha uu furfuraa musqushu galaya waxa kale oo halka ay ugu diyaarsan fishkii oo maraq ka suubiyay fishka madaxiisa oo maraq aan ka suubiyay ma u jeedo waa fishkani وأنا مرق كسوبية مذحي بعين تصيّر وحد كو جران كرتان إشي فيش كمركز ركتان موجود دواء قف كاس إن عاد كام مقلة ترى ما عندها فيش كوعني ما فهمتين وفيش كان موجودان مرق كاس كسوبية مرق كاس يسلر كاس يروتي أما وراه بريس عد أما باشي بانسكوعنا يا ما فهمتين سؤال قبله واحد عن وايد على خضر محا اسمه رساوى الأرارس وروح نعبى ألعابتين بنعبى ماشى باستي بريس كعنصان وحواي كان وفيتامين ديجي أمانت 3 فيتامين دي لفها وايه مرق فيشكا مسكحد او فيعيهي حتى وحو فيعيه هرمونكا قفك بلا ادن كمارتي ان تركيس اسبدل كو امامو ka ilaaliya ma fahanteen aniga hade reer xeebeed reer mudug bay dhahaa laakiin original xeeb baan ka imid ma fahanteen so wakaas maxaa la dhihi jiray ii sheeg fishki maraqiisi rootiga ku cuni kartaa bariiska ku wax ka macaan mala kabsar baa ku daree sanjibiil baa ku daree toon baa ku daree xawaashadii kala nooca ku darsan nibcada ilaahay wadankeena dhigay waaye marka saa ula socda insha Allah testigiisa hadaad dhimisaan wallahi waa jeclaanaysan qofka markuu cabo intaan isku cuno fiiri markaad baamiyihii salarkii iyo basbaas greenkii isku cuntid oo aad beertaada guriga deedkiisa ka soo guratid ama aad suuqa ka soo gadatid caafimaad aad dareeraysaa baamiyuhu dhacaanka kaliya ma siyaadiyo waxyaalo badan oo caafimaad u jirka maaragtay u siyaadiya oo ku dara aad iyo aad maaragtay wallahi hadaa barati wax kale ma cunisid marka wax kasta la kariyo fitamiinku waa ka dhintaa hadaada jecleen qarjowgiisa biyo yar baad wax yar oo 2 minute ku uuminaysaa inta jirtirtid waa cunaysaa liindhanaan yar inta ku darsatid wax yar oo liiva hadaad rabtid laakiin wax kasta la kariyo fitamiinku moor la kariyo uu ka dhintaa ogaada saa ula socda halkan marka maraqa fishka markaan u soo noqdo fishka waa waxa kaliyo ninka ragga awooyaasheen barigaas daga waxay ku gaaraan waxa la jiray 100 something age ku gaaraan fishka cunaa fishku caafimaad badan buu leeyahay maskaxda dadku u fiican lafuu u fiican yahay hormoonku u fiican yahay qofku isma bedelo ma fahanteen soo waxaan ugu talin lahaa Soomaalida waliba qurbaha joogta walaalayaal waxaan dhihi lahaa fishka maraqiisa karsada waxaas ma cuna iska daaya fishku ma uro hadii qof yaqaan sida loo kariyo uu kariyo xawaashi kaariye kala duwan baa ku darasa ayuu xawaash mana uraya waxaan kala suubin kartaa xabad sawdo soo ma jeedaan xabad sawdo waay aniga waxa suubiyaa marka cunay wax yar oo xabad sawdo ah ayaan ku darsadaa ma fahanteen xabad sawdadaas aad ku cabisaan ku cunasaan kala iskar qofkan xabad sawdada minis ilarti ku aan cuni kareyna wax kale oo uu ku darsan karaa sinima ka ku darsan kartaa qorfaha maxaa la dhihi jiray isha waxa ku darsan kartaa xabad rishaadka xulbad yar baad ku darsan kartaa marka rag iyo dumarba waa wax aad binafado ah walaashay macaan ilmahayga ama ilmihiinana wax barashada hadaa rabtaa inay ku fiicnaataan intaad karisaan oo miirtaan xataa laba ka basiilin daraan wax barashadu ku fiicnaanaya cunuga leeysi ma noqonayo ilmo maskax badan buu noqonayaa ma fahanteen saa ula socda hal la isnooleeyo noloshu waa qofka caafimaadkiisa qofa isnoolayna caafimaad ma helo marka kan waa nafaqada wadankeena ilaahay ku beeray badeena iyo birigeena aad ka helisid wallahi been ma ku sheey Soomaali marka tagay qof adeydkiisa ka soo guray inta saxan ka saar baamiyaha basbaaska basasha qajaarka marka kana badad ka soo dabanay maxay inaga maqan ilaahay xaqan ugu toosiyo walaalayaal describe ku dhufta like ku dhufta isgaarsiya nafaqee naftaada u roono reerkaaga ilmahaaga odagaaga iyo ilmahaaga u roono mar odagaaga islaantaada wareeba istariyashana waa moor ilaahayna in daryeelo adinkuna ma aragtaa sii jeclaataan noloshu wax iska bedelaan dadku markuu habits waxa la dhahaa jira qofku markuu overweight noqdo qofku ma aragtaa ishe markuu xanuuno kala duwan baa ku dhaca sokor baa ku dhacda stress buu noqdaa laakiin qofku markuu cunto healthy cuno fitness exercise hadaad suubin karo gurigaaga ku dhex boobod jamgare qofku maalinta xataa 15 minutes inuu suubiyo exercise oo iswatin iska keeno waa wax aad u fiican nafaqeen naftaada waa Soomaali healthy khadra foochir nafaqeen naftaada ka noolo waxa dhulkaaga ilaahay ku beeray intaad gacan shisheeye aad u hoorsanaysid walaalayaal dadaan ku cayn jirna fiiska wallahi aqli baa ku jira maskax baa ku jirta
qofka bartana wax kala ma cunayo anaa runta inii sheegaya waxaa inii sheegaya marka insha allah qof kastoo benefit ka hela waxyaalahaas aan tusay ducada igu kaalmeeya in ilaahay cadowga gaaladan ku dhex jirna aniga awlaadeedii inta islaamka ka badbaadiyo inaana wada naxariisto marka insha allah waxaa inoo ballana commentkiina iyo like-tiina iyo share-kiina waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan inii jeclahay ummadda soomaaliyeed oo programkayga ku xiran allah ina barakeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu